halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda Somali Swiss Lora waxa qadka si toos ugu jira Cabdi Nuur Suuley Cabdi Dheere oo ku takhasusay dhaqanka Soomaalida iyo waxyaabo kala duwan Cabdi ku soo dhaw idaacadda Somali Swiss Lora walaal Yunis waan dhawahay waan idin salaamayaa adiga iyo bahda shaqaalaha Somali Swiss Radio Lora Cabdi Nuur Suuley Cabdi Dheere ku soo marka hore waxaan nooga bilowdaa taariikhda horta walaal Yunis aniga magacayga saddex walaal sida uu sheegtay Cabdi Nuur Suuley Cabdi Dheere waxaan dhashay 1970kii walaal waxaan ku dhashay miyi ayaan ku dhashay gaar ahaan Hiiraan marka walaal miyi ayaan ku soo barbaaray ilaa 1990kii ilaa hadda intii ka dhaxaysana adiga muddo 5 sano ka horna walaal waxaan ku sugnaay magaalooyinka Soomaaliya sida Muqdisho Hargeysa Baydhabo Beled Xaawe Beledweyne oo gobolka aan ka soo jeedo ka walaal waa Cabdi Dheere waad mahadsantahay Soomaaliya waxa u laaba doonaa meeshaad ku dhalatay iyo magaalada Muqdisho ayaa joogi jirtay waana ka shaqeey jirtay maxaad qaban jirtay walaal wadi hore iskuulay ayaan ahay marka ilaa iskuulkii kadibna waxaan ahay waxaan ka ahay darawaliinta gaadiidka dadweynaha ee gobolka Banaadir waa gartay marka hadii aad soo bardhigtay ka waran baabuurtii Soomaaliya ku waday iyo kuwa Swiss hada ku waday walaal Yunus wax la isku barbardhigi kara ma ahan because maxay yeelay markaan Soomaaliya anoo basliya oo shacab mas'uulka oo baabuur shacab wado iyo sidaan wax u wadi jiray iyo hadda waddanka Swisska baabuuran ku wada iyo sidaan u wado markaan fiirsho lafiig ayaan buu cabsadaa markaan Soomaaliya baabuur ku wadi jiray because maxay yeelay Yunus waxa arki jiray Soomaaliya anoo baabuur ku wado oo bi'al oo dadtaaran yahay aniga kaliya ma ahan dadkii oo burburkii soo koroo dhan ama baabuurta bartay waxa arkaysaa seedka loogu talagalay baabuurka kaasoo hor socdo oo mara waxa arkaysaa nin mara arkaysaa oo ka hor imaana wiji haddana wuxuu isku haystaabo inuu saxan yahay oo adiga aan qaldan tahay markaasoo waa kugu xanaaqa hadduu rabo waa kugu jiido oo waxa laga yaabaa inuu baabuur duqa oo wato marka oo baabuurkii ka garaafeeyo marka wallahi darawaliinta Soomaaliya ee burburkii wax bartay waa xaalad saxiix iyo aad taasoo soo laaba doona wax taqasus ku weyn ku leedahay ciyaaraha Soomaalida iyo dhaqanka horta ma jiraan dadka reer miyiga maadaama dhul miyiga ku dhalatay saad noo sheegtay ma jiraan waqti ay farxaan horta Yunus ma sha Allah dadka reer miyiga aniga waxaan aaminsanahay maadaama aan iyo magaalada dhaqamadooda aan aqaano labadana aan waqti dheer ku soo noolaay dadka miyiga waxa aaminsanahay in dadka magaalada ka farxad badan yihiin maxaa yeelay dadka magaalada dadka miyiga aan u jeedaahe waa xoolahooda iska shubtaan xoolahooda ay iska ootaan xoolahooda iska raacdaan dadka reer miyiga gaar ahaan marka uu roobku da'o oo dhulku oo barwaaqo noqdo oo dhulku oo green noqdo ama oo cagaar noqdo awadu markay madoobaato dadka dhalinyarada waa la isku yimaadaa waa la ciyaaraa waa la siyoodaa qaabka loo ciyaaraa marka ciyaaraha nooca loo ciyaaraa marka waqtigaas la ciyaaraa laakiin ciyaarta dhaantada nooga bilaawarto amase iwad Yunus sida hadda wiilasada kale oo gobolada Hiiraan ka soo jeeda aad iyo aad loo jecel yahay waxa la ciyaaraa habeenkii markay 4 saac habeenimo tahay ayaa dhalinyartu ay isku yimaadeen waxana bilaabay 3 wiil oo banaan 3 wiil bilowday marka dambana waxa laga yaabaa gabdho iyo wiilba inay 200 ama 100 qofood ay meeshaas ku timaado qaabka u bilaaban marka qaabku bilaaban kale waxa waayeen waxaan xasuustaa wiil 3 ama 4 meel isku balansano ayaa halkaas wiilasho ku bilaabi jirnay haddaan wax ka maqashay wiilashadaas oo kale شب وصعد كأول جنابي صح مرادي خويا جوغري
شب 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 قاعد ويلكاس وحميني marka ninkii baa bilaabay ama afar qof baa bilaawday ama saddex qof marka dadkii waxay maqlayaan ciyaarta sida loo ciyaaray ma kadib soo baxayaan dadkii waxay maqlaan ilaa 20 kilomitir 30 kilomitir 40 kilomitir waxa laga maqlayaa dhawaaqa ciyaarta marka wiil iyo gabardo waa meeshaas dhawaaqa ciyaartu ka yeerayo qof walbo ay soo bartilmaamaysanaysaa marka halkaas la isku imaana magaasa gabdho iyo wiilba la isku imaana meeshaas lagu sheekaysana lagu wada ciyaaro kala duwan hadda sida oo Abdullah waa ka dhaxgalay ciyaarta ka waran ayada dhaantada ka waran hadda wali shaqada baan oo sheegtay dhaantada ayada noocyada loo ciyaarayna yaa ciyaar dhaantada leeyhilo wayaabole leeyka taage oday aada taas waa dhaantada ma marka تصدقني اوكي هذا كورا مقاسا هذا كورا مقطع انا عبدو كان ملا waxaan tagnay mugta ku reediilay miraho reediilay kama ka xaliya dadku jiik wili midii mugta sax wargaasa ciyaara meel ku xirnay ciyaartii marka meel ku xirnay waxaan waynay wax ciyaartii noo soo galo waa gabdho yar yar oo adiga 400 300 5 ila meelaha ka soo galay mugta sax marka si dhulkii aduunko tiniyo waxaan muquri iyo maxaas iyo raqsa iyo tiniyo teedaan farqalaar xalaala halgan dhulkaas aan macnaha dibni jiro marka ciyaarta ay magaalada imajira filayeen moogta marka dibniya wayna markaas waxaan yiriyay dhaantadan ku leenahay moogta aku awayno bihi olje bijire norlo galshe awaydo markaasa afartii gabdhood laga arsana moogta markaas waxay yiraahdeen hakureer abuna walaha biga hakureer ado ciyaaraha kale maxaa kamid ah dadka oo meelahaas laga ciyaaro maxaa kamid ah marka hadda wali shaqadii dhaantida waa noo sheegtay waxyaabaha oo dadkaas aad u jecel yihiin ugu farxaan isku jecel yihiin isku yimaadeen waxa kamid ah sida gabiga oo kale hadda hal gabi hadaan ku dhafaasay gabiga aleel duway albaab kol xiray uu ku wada seexday onka yeeray uga maroob alif banaadiiday idayda bixibaaliba nagan la moodaye labadan kaleeyahay ilaah kaliyaba aboodigu malolo garadow een kaleeyahay arwaasuma galbado nin il iyo oof eebu kaga taalo nin ugaas walaalkiis yaho eeday baan ahaye ninka ila biyala soo maro oo mubaanahay waxaan la uruganayaa waa urkuta lagaydiya Abdullah aad loo baastay hay maxaa kale kamid ciyaaraha meesh marka yurub waxa kale soo xasuustay gabi oo hadda kooda waxa la yiri waxa oo malaari iyo waxaas ama dadkaas ku dhacay iyo waxaas ama qabaan iyo wadaqaatiir isku sheegay hadda kooda waxa lagu yimid magaalada moogta magaalada dadka bal hal baaro hal duro marka wiila marka sida ciyaarto kala dhaantado kala gabigo kala macnaha waxyaabaha wax la isku sheego oo sida hadda adduunyada loo isticmaalo media kale oo dadka media wax loo sheego dadkaas macnaha barnaamijkaas wuxuu yahay dinaha media ahaan uu yahay fahad sax marka dadkii oo magaalada kiimid waxa la socday mid gaar ah la socday wateeray macnaha ninkaas gaalkaana wuxuu rabay hay'adu ka socday bal dadkan rimiga hoos ariga ilaashado geel ilaashado loda ilaashado beeraleyda bal caafimaadkooda waxaas inuu gaaro ogaado rabo mogtahay iyo dadka magaalada waxa u dhaxeeya marka wiila marka wuxuu sheegayaa macnaha gabi ahaan wuxuu sheegayaa marka gabi wuxuu soo qaatay adigoo dhaawac ku gaaray baad dhaylo soo guratayo irbadaan gaal ku dhigaayo taktarkaaga wanaagsano dhirtuwe nolosheena irbadaas gaal ku dhigaayo
daktarka hada wanaagsan dhirtu waa la sheegna markuu leeyahay dhirta macnaha dhir kala duwan oo waxa jirto miiga ka baxdo sida geelira jinow geelira waxa jiro amba ka baxo waxa jiro geelira jicib waxa kale ku yaala geelira ontoro geel waxa la ku yaala xakameey oo dhulka ka baxo faafo marka waxaan dadka hadda nagu soo biraa rabaa inaan u sheego halkaad weli aad nagala socotaan waa idaacadda Soomaali Swiss Lora waxa barnaamijka maanta marti noogu ah Cabdi Dheere oo degan magaalada Bern Cabdi wuxuu taqasus weyn u leeyahay dhaqanka Soomaalida dadka qaar way ka faanaan dhaqankoodii laakiin asaga uu ku faanay dhaqanka Cabdi Dheere meeshaas nooga sii wad marka waxaan ku weydiinayaa shukaansiga ka war marka dadka miyiga ka war والله يرجع واركي وحيدي سؤال مهم هيدي سيو معايا ما دام ان ميدي مغالبه ان اقول بوحد ان الله هي لبدا كلا جرم شوكانسيدا ان اقانو لبدا شوكانسي waxa sistemaan aniga ahaantayda waxay ila tahay waa kala macyihiin waa kala dadban fiican waxana ila dadban fiican aniga ahaantayda shookaansiga oo miyiga ayuu shakada hayay miiga macnaha waa la isku shukaansadaa awoodu markay madoobaato ayaa wiil waxa laga yaabaa wiilku inuu 10 kilomitir 20 kilomitir gabar degan inuu halkaas ka shareecdo 4 saacadeynimo 2 saac inuu sii socdo macquula wiilkii wuxuu u tagayaa gabar oo dhulkaas waxa laga isticmaalaa waxa la yiraahdo aqal awoodu la galaa ama roobka laga galaa ama dhaxanta dibadu marmar waxay jiifataa waxa la yiraahdo gamaas oo guriga dhiciisa laga dhiso marmarna hadii roob ama wax jiraan dabayl waxay dhaxjiifataa hooyadeed iyo aabaheed waxa uu leeyahay barnaamijkaas dadka oo dhulkaas degan akhlaaqdooda dibadda oo hooyadeed iyo aabaheed iyo ilmuhu la dhashay dhaxjiifto ayuu wiilku wuxuu samaynayaa ushiisa asoo wato ayuu wuxuu hubinayaa liira go'shaal uu hubinayaa halkaas uu gabadha ugu taga tartiib macnaha waa aado madaxa gabadha uu degan yahay macnaha waxa tirada asiga horma u yaqiinay qoftan mas hore uma garanay baasi hayqana ama yuma aqoonin waa meesha waa dhaqan ka jiro wax dhibaato ma wax dib isku sameeyaan ma laha iyo shakada madaxu ka fadhiisanayaa wax yaro go'a madaxa ka qaada markaasoo walaalay manabada waa nabade wiil walka ahay god iyo geed kaaga soo booray dayre iyo darajo waa adiga hadda idreysidna waa u qabaa hadda idreysidna waa u qabaa oo macnaha wuxuu jeedaa darajada macnaha hadii aan banaanka guriga albaabkiisa marka ku istaago itimaadid hadda idreysidna raacdid waa u qabaa hadda inta guriga albaabkiisa ay u timiday maadaama aan meel dheer kaaga imaday aadan ii sheegatinna ayuu waa u qabaa walaalay wax yaraan laba tilaabo dib u dagay ii waxeen wax yar oo gadaal u dagay wiilkii gabadhii ayadoo sida u socoto akhlaaqla ayadoo u socotay halkaas imaanaysaa si tartiib meesha lagu wada hadlayaa haddii gabadhii wiilkii darajeyso waxa laga yaabaa ama hay shaqaanina ama yeenis aqoonin waa dhaqan aad u wanaagsan oo kaas ka jiro oo bila military bila boolisay bila xukuumad waa dhaqan dadkaas dhaqan ay ku dhaqmaan intaas dawladda xukuumadda wax isku dhaqmaan gabadhii waxa laga yaabaa wiilkii inuu israacaan waxa laga yaabaa inay geeriyo dhaxdooda ay fadhiistaan waxa laga yaabaa 4 saac 5 saac in sheekaystaan ay qoslaan ay ishukaansadaan wax qaladaada ma dhaco manaba ka dhaca dhulkaas waa sharci oo dhaqana oo aad iyo aad u fiican marka way aaminay marka ayada mase wax cabsiba kama qabto macnaha waaba dhaqamo dhulkaas ka jiro oo waaba dhaqamo dhulkaas ka jiro xidgudub ma jiro oo xidgudub waaba wax ceeba oo wiilku wuxuu haystaa gabadhan lacala hadduu xitaa uu guursan inuu walaalkiisa Soomaaliyeed u guursan doono in dhali doonto umma Soomaaliyeed oo dunida ay garabkiisa yihiin shukaansiga hadda ka war Cabdi Dheere ka dhaxgalay shukaansiga hadda ka war ونيو شكرا شكرا هذا جرني وشكرا سبا معني هاو وابي وحبالي يابي وحبالي يابي هاو تليفون على اسكو درايا اما وضع على اسكو مغرب معنا يا هذا كدي بابا شاكر وحتي بلابنا يسا حبيبي هدنا يريسو I love you يريسو so much واقع هلي نا انكسيي
حبيبي أنا سيدو كلا أي شكرا يونس والله يا ولد والله ما أقول سدح معلومات أسبوع يشتغلوا أيا وحنقو أركي وعيسلين حبيبتي المها بلد وانا محار بحنا مكاسي قبدي وعلى حبيبي مؤمن مكران مدينو مؤمنو حبيبي ما بعد كورة بجنو مكاسي وعلى حبيبتي هوا هنتا المها اللي ويلي قبربو ما أبوك بالعبنا صح marka wallahi Yunus wax oo kala duwan waayeen haddana wax furiinka la yiraa wax waa luka miyiga ku yahay hadda muddo oo 20 sano ku sugnaay aniga magaalooyinka kala duwan oo Soomaaliya mar aan darawal ahay iyo mar aan ganacsato ahay intaba iyo mar aan hay'ad la shaqeynay markaan iskoolkii aan dhameeyay kadib wallahi Yunus waxyaabo badan arkay marka wax la isku maseema aniga ahaantii waxay la tahay way kala fiican yihiin labada dhaqan waa dadku waa kala farxad badan yihiin oo qof stress markiisa iyo qof walbo عبد دير وما حسنت waxaan rabaa dib inaan noogu celiyo ciyaarihii wax yar magarad rag waa noo sheegtay sida marka waxaan rabaa rag iyo jiibinayo iyo naagiyo jiibinayo inaad wax yar nooga taabatid dhaantada magarad ama wali shaqada ba noqotay Yunus haddaan ku soo qabto macnaha naagiyo jiibinayo horta badanaa naagaha marka la dheeraad naagaha wali shaqada way soo galaan horta waxa fiicnaan leeyahay barnaamijka hadda macnaha inaan wiilal iyo gabdho anigu isoo joogo oo barnaamijka sameeyay in horta live u tubisiin adiga iyo idaacada Soomaali Radio Lora horta way fiicnaan leeyahay marka aniga ahaantayda xogaa in wax ka taataarto weeyeen macnaha sacabkii la isla helaayo kale ciyaartii dhaantada horta ku dhafoort gabdhihii ciyaarta soo galaayo kale wixii xogaa matalaadiga xogaa waa adag tahay matalaadu way fiican tahay marka la isla joogo lugta صح marka Yunus waxa ku dhahay aad maaniya dadka dad aad maano adaan hada xitaa hadda soo qabto oo hadda soo qabto dadka xitaa marka oo wiilasha ama gabdhaha markay dhaamiyaan oo ay tagaan ceelasha sidoo kale geela marka la shuba wuxuu leeyahay dhaantada iyo geela marka la raanka Soomaa geela marka la raahiso ari weeso leeyahay ladu heeso marka la raaka war dadka marka la raayada heesid maxaa kamid ratiga marka la raayo waxa kamid ah saashada hoos la laaban doonaa iyo ratiga kale marka la raayo waxa kamid ah ratiga markii la raraa waxa kamid heshiisa daansho wallahi dibayay awadina wadagado maalintiina wadagi wadigaan ku haaye wadiga xalku haaye baryaro mana gacan ku diig lahay misa ana geela gowraco maalintaada markaa fiilay maalintaada markaa fiilay haddaan kugu agowraco ana geed magoodaray baryaro ana kugu maguure mana weeyaan maalintaad macnaha hooyada aan ka dhirilay haddaan ku gowraci lahay haddaan af Soomaaliyeeyo ana kugu maguure kuma rarteen adna hadda geedaha ma daaqdeen ma fahan صح عبد دهر هذا كذا ما كجا بجانين هلا ورئيسي يا أبو رئيسي انتبه يا دوم هذا واحد كهرباء سؤال شو قد بيسون كويدينه حتى دتك سويس كسومالي دكين كورايجا واحد دكين هذا مقالة بيرن بالناقة ورن أيجن يونس دتك سومالي ده ودنا كان سويس لانجا رهان عاصمة بيرن ولا لو دتكو هل نبأي خبان بدنا هل نبأي خبان كاركوت waxaana aad u daran dadka aan wax hor u soo baran sidoo kale waxa arkaysaa dad badan oo hadda waayihii dambe waxa arkaysaa dadkii waayihii dambe burburkii dhashay oo aniga dadkayni aniga miyiga ka soo jeedna ayaa haddana wax helan isgoolaad ama waxbarasho helay ilaa dugsiga sare dugsiga hoose dugsiga dhexe marka qofkii saas oo kale wax soo baratay